الحمد لله ثم الحمد لله الذي أنزل على عبده ونبيه ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ما أصدقها إنها كلام رب العالمين. waxaan hadda ka hor ka soo hadalnay kambeynkii qur-aan gubista iyo halka uu marahayo. runtii adigu waxaan hadda isweydiinaynaa maxaa u dambeeyey asbuucan oo runtii asbuucanina la oran karo asbuucii ilaahay awooddiisii iyo mucjizada qur-aanka uu leeyahay muujinay waxyaabo muujinay dhacdooyin muujinay inay dhaceen oo isxixiga oo ilaahayba u soo dedejiyeyba min calaamaati haadihi al-aaya oo allah subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay oo waxay ka aamin noqdeen inuu cadaab daboolo ilaahay u soo dejiyo ama saacadda si keesa inuu ugu timaado iyagoo aan is ogeyn. aayaddaasi si ficil leh oo muuqata oo cibro qaadasho leh yay maanta u taagan tahay oo una camal falowsaa oo maanta haddii kufaartan caanidiinta argagixisada mutadarifiinta basar iyo basiire aayaddaasi ay ku fiiriyaan iyo ku turjuuntaan xaqiiqatan waa hayaan makrigii ay maleegayeen iyo siduu ilaahay ugu dabagediyey iyo qowlka alla subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun inay uusan kalaam bashar iyo wax lamida la imaan kara inuusan ahayn allihii koonkan abuuray khaaliqul makhluuq ahaa kalaamkiisii inayt ku xadgudubkii ay ku xadgudbayeen iyo dheeshii ay ku dhedheelayeenna ay maanta haysataba oo asbuucani dhacdooyinkii dhacay waxaa adigu ugu waaweyn in uu dhagarqabayaashii argagixisada ahayd uu mid ilaahay uga argudanayo oo welibana aayad min aayaati illaah oo u noqonaysa qof kasta oo daalim ah fursadna haysta oo dulmigiisa uga laaban karo. waa haddii uun caqli shaqaynayo, laakiin runtii dadka maanta jira caqligooda waa un fooraraa, waana dad uun ilaahay meel u diyaarsaday. marka mid ka mida dhagarqabayaashii koodii ugu liitay ee ugu ayaan darnaa loo wakiisha qur-aan gubista, ilaahay wuxuu sababay isagoo hooshii weliba ku guda jira in uu si xun u dilo oo u dhinto u dilo uga aargoosto cadaabkiisa adduunka ugu keeno. oo waxaa la hayaa isagoo xaalad xun ku sugan oo weliba suuliya adigoo gadaala ugu tegi doona kolley asaa isdilay yiraahdeen taa waa qodob. kii kaloo asna mid kaloo asna ayaan darnaayo qur-aanka gubistiisa loo soo xilsaartay argagixisada ahaana asagana maantay oo weliba ay bunbuuninayeen oo hero u arkayeen. asna waxaa la hayaa wiilal yaryar oo wiilashoodii weliba asuu awow u noqon karo oo 13 jir iyo wax ka yar ah isagoo kool shukaansiga kula jira. fadeexadtii ugu xumeed uu maanta dhex fariisi ayna usii dheer tahayna waxawaaye sida la hadda inkastoo in badan ee xaqiiqo ah oo jirta ay qariyaan, laakiin ayadaaba iska imaan doontaba. waxay qariyaanba marka u dambeysa ayadaa banaanka iska imaan doonta. ninkaa asaga ah oo kii hadda u dambeeyey gubay markii laga reebo Netherland, kolley ayadana kolley waa la ogaan doonaaye. kii Sweden maanta xaalad xun uu ku sugan yahay oo ayagiiba xataa
gaaladii caanidiintahayd ku kaalmeynaya ee maanta ay markhaati u tahay isku dhararinta ilaahay la isku dhardharinayo iyo gubista kitaabka alle khasaarada iyo dhibka ay leedahay iyo in cadaabkii uu sheegayayba adduunkaba ugu keenay marka waxaasoo dhan adigu wixii aan ka gaarnaan taaban doonaa si guudaan u dulmari doonaa hadduu ala yidhaahdee waxaa kaloo dhacay asbuucani oo ayadana min almucjizaati kalaamullah ah oo qofkii diintani ama kitaabkan qur-aanka iyo hadda oo nimankan talafiyadahay ee afka un ka yidhahdaan qur-aanka hala qaato ha lagu dhaqmo ha lagu dheganaado ee afka un ka leeyihiin adiga shaksigii ama dowladdii si ficil ah ugu dheganaada una fuliya awaamirteeduna u qaata una difaaca inuu ilaahay ayagana karaamo iyo cizi uu ka muujinayo kor ay u soconahayaan oo waxaanu ogsoonahay in dowladda keliya oo mashruucani ama kambeynkan kitaab gubista dowladda keliya ee maanta lagu xumeynayo inay tahay dowladdan Erdogan ee Turkida iyadaas runtii waana xaqiiqa waxa ah maanta aakhiru qalca oo islaam leeyahay inay tahay oo markii islaamka intiisa kale laga soo takhallusay oo ay maanta waxa keliya oo soo taagan ee ayada noqotay ayadana daahada u sahal kulley wixii dhacayna ayadana waa hadda dibaa ugu laaban doonaa hadduu ala yidhaahdo iyo se wax u jiraane maya taas markalaan siinaynaa laakiin marka dowladdaas siduu ilaahay ugu sharfay kalaamkiisa kalaamka ilaahay koryeelidiisa siduu ilaahay ugu sharfay iyo go-aanada ay qaateen iyo sida ay difaac ugu jiraan iyo halka aalo maraakiin ay ka ciidamanayaan oo maanta aalo maraakiin ay najdi iyo xijaastii inta dhala rogay maanta ayagana taasna ayadana mar kalaan geli doona hadduu ala yidhahdo ayagoo meesha ay joogaan iyo in ay argagixisadan kufaarta caanidiinta kitaab la dirirka ay gubista qur-aankaba iyo kambeynkaniba inuuba ka socdaba dhulkii barakeysnaa ee najdi xijaas isku ahaa ee aalo maraakiinta ee iska duldegeen oo maanta dee hada u sahla marka bal intaan marka aanba u gudagelin bal aynu fiirino siduu ilaahay uu karaameeyey dowladdan Erdogan maqaalkani wuxuu muujinayaa sida ay dowladda Turkida ugu istaagtay difaaca kitaabka qur-aanka ah iyo siduu ilaahay iyadana ugu karaameeyey oo uguna sharfay maqaalkani marka waxaa ciwaan looga dhigay Norway withdraws permission for Quran banning after Turkey's warning markii ay dowladda Turkiga si adag ugu digtay waxay dowladda Norway ka laabatay ogolaanshihii qur-aanka lagu gubay arrin runtii xaqiiqa ah oo wax weyn ugu fadhida dowladda Turkiga oo runtii muujinaysa mowqifkeeda iimaaniga ah ee qawiga ah ee la soo shir tagtay eena ku hor istaagtay cadowtooyadan loo muujisanayo islaamka laguna gubayo kutubka ilaahay wax dowladda saa uga hortageen aan lahayn marka laga reebo Turkida marka waxay marka Norway maqaalku ku bilaabay Ankara Norway cancelled its permission to ban the Quran, Islam's holy book, after Ankara warned against it, Turkey's foreign minister said on Thursday. Khamiistii wasiirka arrimaha dibadda Turkida wuxuu sheegay in Norway kansashay ogolaanshihii fasaxa ee qur-aanka lagu gubay. Speaking at an event in the Turkey capital Ankara,
isagoo ka hadlaya magaala madaxda Ankara Turkida Mevlut Cavusoglu magaca uga ciyaari leh said wuxuu yiri that the acceleration of globalization and change has led to some outcomes in humanity such as an erosion of national identities and a loss of language consciousness. isagoo markaa barxadaas oo adigu shir jira aad ku qabtay magaala madaxa Ankara wuxuu sheegay in uuba xaalad xawaare ah oo shalarayn ah acceleration inuu ku socotay ba sheeko globalization in dhowr dowladood oo Scandinavian-ka si isxiga adiga campaign-kan quraan gubista uga socday waxaa campaign-kaas uga socday markaa wuxuu ahaa mid oo ka soo baxay wax humanity-ga meel uga dhacay bini'aadanimada wax meel uga dhacaya oona tirtiraya jiritaanka iyo aqoonsiga ummadeed ee ummad leedahay ilaan kutubka qur-aanka ummadan oo 2 bilyan ah yuu astaan u yahay oo waxay aaminsan yihiin oo agtooda ku weyn marka xadgudub oo lagu xadgudbayo jiritaanka ummadaas ilaahay balaariye islaamka ah ayuu leeyahay ayuu campaign-kaasi ahaa. It has also led to hate crimes, Islamophobia, racism, xenophobia, intolerance and discrimination. wuxuu kaloo hogaaminayay dambiyo cadowtooyo ah iyo islamophobia oo cudurkan baas hadda ayaga dhanba ku wada dhacay islaamka cabsashada ah oo islaamka dee hadda waa diinta kaliya ee runta ay soo taagay waxay meesha ku hayaan inay ka soo horjeed racismna waaba naqaanaa waa adigu waxyaabahan oo dadka oo kalarkooda lagu kala fadili xenophobia-duna waa dadkan yani aadka uga cabsada muslimiinta iyo dadka soo galootiga iyo weli adigu waa muslimiinta soo galooti kale ma jira waxay leeyihiin hadday muslimiinta meeshan kusoo bataan iyo adigu discrimination oo kala soocis iyo waxyaa dad arrintaasi ay hogaaminayso ilaa iyo 5 sifo oo midda kala ka xun iyo arrintaasi hoggaanka u hayso yiri You saw what happened in Sweden, the Netherlands and Denmark. ujeedaan wixii ka dhacay dowladaha saddexda ah. The same thing was gonna happen in Norway today. markaas iyada ah waxaa ayadana qorshaysan inuu Norway ka dhaco maanta yiri. We summoned the Norwegian ambassador and they withdraw the permission they granted, Cavusoglu said. waxaan si adag uga dignay oo weliba cambaareed wadata dalabna naga ahaa oo aan hor dhignay safiirka Norwegian u jooga Ankara arrintaas ayada ah inaysan wax macquul ah loo ogolaan kara aysan ahayn. dowladda Turkigana saameyn waxawaaye waa digniin adag oo ficil ka imaan kara oo daba xigana lagu cadeysanayo. markii aan digniintaas adag siinay dowladdii Norway ahayd waxay ku khasbanaatay inay ka laabato ogolaanshihii loo haystay quraan gubista oo maalintaas jimcaha ama khamiis iyo jimcaha mare ahaydba oo loogu talagalay in lagu gubo. marka waa ilaahay xamdigiis kulley taasna waxaa ku guuleystay oo joojiyey oo hakad geliyey kuna sharfay dowladdaas maanta caalamkii islaamka caalamul islaami keligeed ka taaganba. intii kale wax daalay oo iska xiiqay oo meel dhex istaagay iyo wax daalimiin ah oo arrintaanba wax ka wada oo wax ka og kuna qanacsan
ficilo ka xunxunna ku fakerayo soona wadaba sida aalmaraakiin iyo aalmaraakiinta hadda nardi xijaas iskaga habsaday ee lagu dulhayo oo runtii waxyaabaha hadda nimankan quraan gubis keliyaba joogaane falal ka foolxun soo wadaba. qodobka labaad oo laga yaabo in ay dowladda Norway uga laabatay sheekadii fasaxa ku siineysay dhaqaaqabayaashii iyo argagixisadii ay ku shaqeysanaysay mid ka mid ah in uu isagii isdilay sida ay leeyihiin iyo kolley waxyaabo badan oo kale qarinayaana waa jiraan oo kolley inay arkeen oo kale inuu quraanku uu faltamayo asaga laftiisa uu dagaal ku jiro difaactamayo inay ka durdegeen oo ilaahay uu tusay inkastoo aysan ku cibro qaadanaynin kolley waxaa un macquul ah in hanjabaad dowladeed iyo hadal la yiri kaliya inaysan arrintaas uga laaban waxyaabo kale ee hadda dafarayso ama qarinayso in ay meesha ku jiraan dhagarqabahaas daalimka ahaa ee hadda ka hor qur-aanka gubay Novembertii lasoo dhaafay 48 jir buu ahaa waxaa loogu tegay kole ayagoo si saaro ku kacaba asaas dilay ku gaabsadeen in suuligiisa waliba qaybta fadhiga lagu saxaroodo asoo madaxa kula jira waliina uu u shidan yahay shiisho xashiish wali daroogo oo waliba nooca weedka ah oo afka ugu jiro waliina sidiiba yani u qiiqayo oo xataa uusan daminba ayadoo halkaas uu muddo saacado camal uu ku sakaraada madaxa meesha kula jiray waxyaabo kale uu laqlaqay iyo wax uu qoorta ku xirtana ay jiraan arrintaas ayada argagax weyn uu ku noqday argagixisadii xag jirka ahayd ee bidixda foge kuwa bidixda ka laafyooda ee adigu qoomuluudka argagax weyn uu ku noqday waana sababta labaad ee la oran karo inay uga laabteen gubista qur-aanka waxaa kaloo asbuucan lafteeda ayadana dhacay oo ayadana wax lala oo wax kolley waxyaabo kaloo isxiga oo dhacayna ee qarinaa waa jira laakiin intii ayaga ee shaaciyeen la waaye kii hadda u dambeeyay adigu laga dambeeyay laakiin Sweden-kii ku gubay ee waxaan ficilkan hadda bilaabay sheekada rogaal celinta bilaabayba in asagana isagoo xaalad xun ku sugan oo runtii dhaqaatiirta ay la yaaban yihiin oo haddaba lafteeda dawo iyo teekargareen ay ku socoto haddana waxaa la helay oo la ogaaday inuu naf iyo nafis ka raadinayo inuu ciyaal yaryar oo awow u noqon karo 13 jir u weyn yahay inuu ku qalqaalinayo inuu yani u galmoodo weliba ciyaalkaasi xataa hadday gabdho ahaan xataa waxaa la oran lahaa wuxuun baa xataa loo jafjafi lahaa laakiin wiilal buu ku dayahay waa fadeexad iyo foolxumo kale oo ilaahay yani luqunta u surahayo tusahayana awoodiisa iyo inkastoo in badan oo ay qarinayaan ay jiraan marka bal aynu sugno sida kale oo ilaahay uga aargoorsado oo nimankani awoodiisa uu ku muujiyo uuna tuso hadday kolle cibro qaadanayaan waa nimankaas ilaahay yani cadaabtiisii adduunkaba ugu keenay cibro qaadasho loogama fadhiye balse haddii wuxuu dhaqdhaqa ku dambeeyo qaarkood kolle waa kusoo hanuuni sida muuqata oo lana rajeynayo laakiin ilaahay wuu tusay qowlkiisii alla subxaanahu watacaala uu ku leeyahay afa aaminuu an ta'tiyahum ghaashiyatu min cadaabi illaah aw ta'tiyahum asaaca baktatan wahum laa yashcuruun aayaddaas alla subxaanahu watacaala uu sidaa ku leeyahay ficil ahaanteedii maanta waa hayaan waa hadday ku cibro qaadanayaan ma waxay ka aamin noqdeen in uu cadaabtayada uu daboolo uu u yimaado amise waxay ka aamin noqdeen inay saacadda u timaado si kedis ah iyagoo aan is ogeyn wax ay boodboodaan ee la gasho oo ay yidhaahdaan freedom expression waaye iyo
turkidan ku xumeynanaa iyo ciyaartoodii maantay jawaabteedu waa u bilaabatay waana u soconaysaa ilaa iyo qiyaam saaca ilaa qiyaam saaca maahan ilaa iyo jahannamo iyo zamhariire iyo cadaabuhu ilaahay ugu talagalay uu ku arooriyo waa un sida adduunkan ilaahay uu keenay waana ugu soconaysa ilaahayna ha u laban leenahay wax ku kastoo daalim ah oo ilaahay addoommadiisa iyo diinkiisa ay ka nabadgeli waayeen eena ugu horeeyaan uguna daran yihiin aalu maraakiin tamaanta lagu dul hayo najdi iyo xijaas ilaahay waxaa u weydiinaynaa masaakiintaas iyo diintaas la dulminahayo inuu ilaahay ka dulqaado اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه